waxaan uga jawaabayaa ugu horeyn Cabdiraxmaan Cabdishakuur saaxiibkay waxaan leeyahay waad hadashay arrin diin kulug labaad ka hadashay dawladdu kuma dhihin hadal oo arrin diin la xiriirta ka hadal waa lagu haystaa culimo badan oo dhinacyo badan leh ayaa ku haysato arrintaada ridisay markaas arrintu arrin eedayn dawladeed iyo hebel baanu ishaynaa iyo hebel baa si gaara dan iiga leh maaha arrin balaaqo iyo aftahanimo u baahan maaha waa arrin serious ah oo diiniya oo u baahan inaad isbari yeesho adduunkaaga iyo aakhiradaadaba inaad isbari yeesho marka ciddii aad ishaysaan ha kuu dambayso marka ugu horraysa waxaa loo doonayaa inaad isbari yeesho aakhiriyo adduunba oo arrintaa lagu haystay culimmadu kuu haysato aad iska bari yeesho mar labaadka anigu haddaan u nasteexeeyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur la taliyo waxaan kula talin lahaa inuu banal culimaa qabto oo yidhaahdo warkayga dhegaysta maxay qabtaa diintu ka qabtaa warka aan idhi haddii ay dhahaan sidii aad sheegtay qalbigaaga tiri wuu ahaa wax dembiya maad gelin waa isbari yeesha haddii ay dhahaan waxaad u baahan tahay inaad toobad keento masaajidka ugu weyn tagoo toobad keen marka waxay u baahan tahay arrintani waa arrin diiniya oo la rabo si diiniya in looga jawaabo ayaa loo baahanya markaas kadib ciddii aad ishaysaan iyo ciddii dan gaara kaale iyo ciddii aad iska celinayso iyo markaad isberi yeesho iska celi laakiin arrinta haddu maaha arrin u baahan raganimo arrin u baahan balaaqo arrin u baahan hebel baanu ishaynaa waa arrin diiniya maya totally wax ka jira male xasan daahir aweys haddii uu xabsi guri ku jiro xuquuq buu u leeyahay telefoon inuu haysto telefoonkiisu ku hadlo hawada geli tiknoolajiyada ayaa u saamaxday laakiin dawladdu miidiana uma geynin oo ma dhihin war soo duub isagaa u arka diintiisii in la soo weeraray marka waxay ka og tahay dawladduna haba yaraatee ma jirto arrintan arrin Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo hadalkii uu yidhi iyo diintu waxay ka qabto xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo kitaabka qur-aanka wuxuu ka qabo arrin ku xidhan waay waa mahadsan taas in laga jawaabo ma mudna waayo dawladda Soomaaliya oo dhammi waxay u taagan tahay waa la dagaalanka iyo ciribtirka argagixisada dawladda Soomaaliya waxay u taagan tahay iyo waxa ay la dagaalamayso iyo ummadda Soomaaliyeed waajibaadka ay u hayso oo ugu horeeyo inay amnigooda soo celiso nabadgelyadooda iyo sharafkooda iyo karaamadooda soo celiso alqaacidada Soomaaliya ka ciribtirto mandateeka ugu weyn budgetkayga 43% ka badan amniga sugistiisa ku bixinaa la dagaalanka argagixisada ku bixinaa marka kaas aqli marka shaqaynaya ama gadmaya ama macquul ah ma marka saaxiibka Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaan leeyahay arrin diiniya oo aanan ku dirin adigu gashay ayaa culimo kugu haysataa waxaanad uga bixi kartaa oo kaliya